waa anigii iyo mar kale kusoo dhawaada barashada xisaabta. haddii aad daawada nagu cusub tahay, magacaygu waa Shiine Gestir. waxaan weli ku guda jirnaa barashada beedka iyo wareega saddexagalada, area and the perimeter of triangles. waxaan caawa videogan gaaban ku baranaynaa sida loo soo helo beedka iyo wareega saddexagalka loo yaqaano saddexagal labaale ah. How to find the area and the perimeter of an isosceles triangle. sidaan wada ognahay, isosceles triangle waa saddexagal ka mid ah noocyada saddexagalada, kaasoo leh two equal sides, laba dhinac oo isla eg, iyo two equal angles, laba xaglood oo isla eg. sida halkan kaaga muuqata, shaxankani waa saddexagalkii labaalaha ahaa, kaasoo luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo isosceles triangle. Isosceles triangle wuxuu leeyahay baan dhahnay laba dhinac oo isla eg iyo laba xaglood oo isla eg. waxaa kaloo uu leeyahay oo laga maarmaan ah inaad og tahay markii aad raadinaysid beedkiisa inaad u qotomisid adigoo ku sameynaya gacantaada jooga oo luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo height-ka, kaasoo shaxanka isosceles triangle u qaybinaya laba shaxan oo leh xagal quman, kaasoo loo yaqaano right angle triangle. markaa kadib ayaad soo heli kartaa beedkiisa. markii aad raadinaysid beedka shaxanka triangle-ka labaalaha ah, waxaa jira formula aad raacaysid. area waxaa lagu helaa beedka base lagu dhuftay height oo loo qeybiyey 2. markaad perimeterkiisa soo raadinaysidna waxaad isku daraysaa dhammaan dhinacyada uu ka kooban yahay. wuxuuna ka kooban yahay 3 dhinac, 1 2 3. intaasi waa hordhaca saddexagalka loo yaqaano saddexagal labaale ah. aan u gudubna daawade tusaalaheena koowaad. waxaana la yiri find the area and the perimeter of an isosceles triangle. raadi beedka iyo wareega saddexagalka labaalaha ah. halkan waxaa inooga muuqda saddexagalkii labaalaha ahaa oona la siiyey labadiisa dhinac isla ekaa 8 centimeter, iyo beeskii oo ah 5 centimeter, iyo joogii oona la siiyey 7.59. beedkana waxaa lagu helaa area, waxaa lagu helaa base lagu dhuftay height oo loo qeybiyey 2. area marka maxay la mid tahay? baseku waxaan haysanaa 5, waa salka uu ku fadhiye. waxaan haysanaa 5 lagu dhuftay height-kana waxaa weeyaan waa jooga waxaana la siiyey 7.59 oo loo qeybiyey 2. area marka maxay la mid tahay? waxaan ku xisaabsanaynaa calculator-keena. waxaan dhahaynaa 5 lagu dhuftay 7.59 waxay soo baxday 37.95. kadib ayaa waxaan u qaybinaynaa 2. waxay noo soo baxday 18.97. area marka waxay la mid tahay 18.97 centimeter square. saas ayaa waxaan kusoo helnay beedkii. haddaba aan u gudubno wareega. waxaan dhahnay waxaa lagu helaa perimeter, waxaa lagu helaa a lagu daray b
oo lagu daray c kuwaasoo u taagan dhinacyada waxa weeyaan 8 lagu daray 8 oo lagu daray 5 8 lagu daray 8 oo lagu sii daray 5 prime number marka waxa la mid tahay 8 ku dar waa 16 16 waxaad u geysaa 5 waa 21 centimeter halkaasna waxaan ku sahnay wareegi bal daawada aan u gudubno tusaalaheena labaad waxaana la siiyey shaxankii saddexaga labaale ah oo dhinaciisa isla eg aan haysano 12 centimeter beeskana aan haysano 16 centimeter heightkiina aanan waxba haysanin waxaana laga rabaa markaa inaan soo helno beedka waxaa lagu helaa baan dhahnay area wax lagu helaa base lagu dhuftay height oo loo qaybiyey 2 area marka waxay la mid tahay base waxaan haysanaa 16 centimeter 16 lagu dhuftay height ma haysano oo loo qaybiyey 2 markaan waa inaan heightkii soo helno heightka inaan soo helno waxaa kaalin libaax ka qaadanaysa xisaabta loo yaqaano Pythagoras theorem taasoo ah xisaab runtii muhiim ah inaad garanaysid sidee ayay uga qaadanaysaa kaalin libaax xisaabta loo yaqaano Pythagoras waxay uga qaadanaysaa waxaan haysanaa dhankan base 16 ah dhinacana waxaan haysanaa iyo dhinacan oo isla eg 12 centimeter markii aad fiirisid shaxankan waxaan dhahnay joogii markii loo sameeyey wuxuu u qaybiyey 2 shaxan oo la yaqaano right angle triangle halkan waa shaxan saddex xagal quman leh halkanna waa shaxan saddex xagal leh xagal quman soo maaha marka halkani waxay u qaybsantay beeskii waxay u qaybsantay 2 bees ayay u qaybsantay beeskan iyo beeskan labadan saddex xagal ayaa kala qaybsaday beeskan marka muxuu noqonayaa 8 beeskanna wuxuu noqonayaa 8 marka saddex xagalkan hadda aan farta huruuda ku qorayo saddex xagalkan ayaan waxaan raadinaynaa dhinaciisan dheer haddii aan dhinaciisan dheer soo helno macnaheedu waxa weeyaan waxaan soo helnay saddex xagalkii la dhihi jiray saddex xagal labaale ah joogiisii haddaan joogiisa ama heightkiisa soo helnana waxaa inoo sahlanaanaysaa inaan soo helno areagiisii waa hagaag marka aragtiinka Pythagoras waxay leedahay a laba ijbaaran oo lagu daray b laba ijbaaran waxay la mid tahay c laba ijbaaran a laba ijbaaran iyo b laba ijbaaran labadan ayaa la dhahaa a iyo b midkaa doonto ayaad a u bixin kartaa midkaa doonto ayaa b u bixin kartaa labadan oo laba ijbaaran oo la isku daray ayaa waxay la egyihiin dhinaca ugu dheer saddex xagal kale xagasha quman kaasoo loo yaqaano shakaan marka aan dhahno dhinacan aan dhahno waa a dhinacan aan dhahno waa b dhinacan aan dhahno waa c o waa shakaalka ka ugu dheer saddex xagalka dhinacan a waxaan haysanaa 8 laba ijbaaran baan dhahayna markaas oo lagu daray b laba ijbaaran b oo ah dhinaca aan raadinayno waxay la mid tahay c laba ijbaaran 12 baan haysanaa c 12 markaas waa laba ijbaarina 8 laba ijbaaran waa imisa waa 8 lagu dhuftay 8 taasoo noqonaysa 64 lagu daray b laba ijbaaran waxay la mid tahay 12 laba ijbaaran 12 ijbaaranna waxa weeyaan 12 lagu dhuftay 12 lagu dhuftay 12 waxa weeyaan 144 waxay la mid tahay 144 halka markaad joogtid b-dan waataan raadinaynay
ayaad soo raraysaa b laba jibaaran baad dhahaysaa waxay la mid tahay 144 markaasaad haddana soo raraysaa 64 tan waxaad ogaataa inay balaas u qarsoon tahay markaad soo raraysidna balaasta ayaa waxaad u bedeli minus waxaad dhihi laga jaray 64 haye b laba jibaaran marka waxay la mid tahay 144 laga jaray 64 waa imisa 144 halkan ay nagu sii jirtaa waxaan dhahaynaa laga jaray 64 waxay noqotay 80 waxay noqotay 80 halkan markaad joogtid ayaa waxaa samaysaa daawade inaad ka saartid dhan walba xididka waxaa inoo soo baxaysa markaan xidid ka saarina b laba jibaaran labada iyo waxaan isa tuuranaa xididka b keligeed ayaa noo soo baxday 80 laga saaray xididkana waa imisa waxaan dhahaynaa square root of ad waxaa weeyaan 8.94 8.94 waxaa soo heshay marka dhinacii bida ee saddex xagalka leh xagasha quman kaasoo ahaa heightka saddex xagalka loo yaqaano saddex xagal labaale ah waxayna noqotay 8.94 waxaan markaa bedelaynaa halkan ayaan waxaan soo dhiganaynaa 8.94 heightkii saas ayaan kusoo helnay marka area waxay la mid tahay intaan isku dhufo oo labada u qaybi 16 lagu dhuftay 8.94 waxaa soo baxday 143 kadib waxaad u qaybsaa labada waxay noo soo baxday 71.52 area marka waxay la mid tahay 71.52 centimeter square taasi waxa weeyaan beedkii saddex xagalka loo yaqaano saddex xagal labaale ah bal aan raadino primerkiisa waxaan dhahnay primerka waxaa lagu helaa saddexda dhinac oo la isku daray saddexda dhinac oo la isku darayna waxaan dhahaynaa waa 12 lagu daray 12 12 lagu daray 12 oo lagu daray 16 12 lagu daray 12 waxa weeyaan 24 24 waxaa ku dartaa 16 waxa weeyaan 40 primerkan wuxuu la mid yahay 40 centimeter waxaan rajeynayaa inuu videogan gaaban uu ku caawiyo intii aan videogan video la mid ah ku kulmi doonana waxaan kuusii dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu